ha ka cabsan inaad ka duwanaato dadka kale ee waxaa ka cabsataa inaad noqoto qof walba siduu yahay inaad la ahaato nafsadaada dadka kale inaad la barbar dhigto waa wax iska fudud inkastoo wanaagsaneen waana inaadan ka walwalin waxa aad ka filanayso bulshada aad la nooshahay mararka qaar inaad ka duwanaato qoyskaaga dadka aad isla shaqaysaan ardayda aad wax isla barataan ama asxaabtaada waxay noqon kartaa mid adag kuwa isku daya inay ka leexiyaan wadadaada waa kuwa doonaya inay ku dhigaan wada fudud oo aanan ku geenin masaafadii aad beegsanaysay dadka noocaan ah ma doonayaan fikradahooda inaad ka fikirto yacni sirahooda way ka qarsadaan balse waxay jecel yihiin taada inay ogaadaan وفكرته سيدا فوق كبحسن حقيقة موقتة أي ضدك كعاوسة إن النقدان هجاميال ووين اختراعيال هالأبو رأه ضدك أنا أشرح ذو وحيابها نفس الضاد قصابسن وين أسكت جوجسا وأنا إنا أوقاتا إن ضدكو وحكو فهمان هيركو فهم كوذية هاي مركا نفس الضاد وحيابه قصابسن أشرح يسودتك كو وين أوقاتا هيركو فهم كوذية هاي haddii aad aaminsan tahay in shakhsiyaad gaar ah ay hayaan horumarkaaga marmarsiyada noocaas ah iska day waayo kuguma caawin karto inay ku gaarsiiso meesha aad hiigsanayso ha ka cabsan inaad guul daraysato mahmaha ayaa dhahaysa qofka waa inuu 7 mar dhaco marka 8aadna uu istaago waxaa ka cabsataa inaadan isku day labaad samayn kadib markii aad guul daraysatay haddii riyooyinkii aad bursanaysay ee kaa burburaan ha ka cabsan inaad dib ka soo bilowdo riyooyinkii aad bursanaysay markii aad wax dib ka soo bilowdo waxaa fursad u helaysaa si adag inaad u dhisto oo aad samayso wixii kaa burburay ha ka cabsan mugdiga dhulka wuxuu mid degan noqdaa markii maalinka dhammaado qorraxdu waxay noqon kartaa mid aad u kulul balse bisha ama dayaxa marna ma noqonayaan sidaas xidigahana weligooda waxay ahaanayaan kuwa iftiimaya oo dhalaalaya habeenkii iyo mugdiga la saaxiib ahaa mana jirayaan wax ku cabsi gelinaya kaliya fikradahaadu u ogolaaw inay gaaraan saaxiibada kugu dhow maalintii waayo dhibaatooyinkeena waxay u muuqanayaan kuwa aan joogsi lahayn inta lagu jiro maalintii balse habeenka marka la gaaro way yaraanayaan xilliyada dambe habeenka dunida waa mid nabdoon oo degan wax shanqar ahna aysan jirin tani waxaa ku dabaqdaa halganka nolosha ee aad ku jirto marnaha ka cabsan inaad ka duwanaato dadka kale ee waxaa ka cabsataa inaad la mid ahaato qof kasta oo aad la kulanta in la kala dubnaadana dambi maahin ha u arkin dadka kaa duwan inay qaldan yihiin keliya burso riyooyinkaaga noloshana waa intaas dadka caadiga wax fikrad ah kama haystaan sida uu mugdiga u qurxoon yahay waayo la'aantiisba iftiinba lama barteen marnaha ka cabsan inaad dadka ka dubnaato kaliya waxaad ka cabsataa in qof walba siduu yahay aad la ahaato in la kala dubnaadana dambi maahin